الرحمن الرحيم imikana waxay la joogtaa Juweeriya oo kamida iyaduna ardaydan shanta ka kooban ee barnaamijka caymiska jeclaaday inay bulshada u gudbiyaan u faahfaahiyaan qaybaha uu ka kooban yahay caymiska guud ay u iftiimiyaan bulshada ugu horeyn Juweeriya waa soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxay tahay waa maxay ugu horeyn caymiska guud bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama baad aad bad mahadsantahay walaal waan dhawahay haddaan u guda galo caymiska guud muxuu yahay caymiska islaamiga wuxuu kala qaybsamaa labadaas oo kala ah caymiska qoyska oo loo garan og yahay caymiska waxyaalaha nool ama family takaaful iyo caymiska general ama caymiska guud kaasi oo loo garan og yahay caymiska la cayminayo waxyaalaha noolayn haddaba haddaan u guda galo caymiska waxyaalaha aan noolayn oo ah caymiska guud waxa weeyaan waa heshiis kaasi oo muddadiisu kooban tahay oo ka qaybgalayaashu ay ku bixinayaan tabarucaadkooda kaasi oo shirkadda maamulaysa caymiskaasina ay ku maamulayso kuna maareynayso hadba wixii dhibaato ee soo waajahda waxyaalaha la caymiyay awna salkiisu ku fadhiyaa una ku lug leeyahay tabaruc iyo caqdi heshiis iyo iskaalmayn mar haddaad soo sheegtay caymiska guud waxa uu yahay balimkan waxaad anigii daawadayaashaba noo sharaxdaa qaybaha kala duwan ee caymiska kooban qaybaha kala duwan ee caymiska guud hoos imaada waxaa ka mid ah caymiska dabka caymiska waxyaalaha yaryar caymiska magdhowga shaqaalaha loo magdhawayo dhibaatooyinka ka soo waajaha goobta uu ka shaqeynayo caymiska hantida kuwaas ayaa hoos maada caymiska guud intaan idin sharaxin caymisyada kala duwan haday noqoto caymisyada yaryar caymiska hantida ka dhaawacaya ama magdhowga bal waxaad anigii bulshada noo iftiimisaa caymiska dabku wixii caymiska dabku waxa weeyaan waa caymiska waxa lagu magdhawayaa lagana daboolaya dhibaato kasta oo soo waajahda hantidaada kaasi oo uu sabab u yahay dabku haddaba hantidaada waxaa ka mid ah hadday noqoto hanti ganacsiyeed hadday noqoto hanti guri oo dhismo ah hadday noqoto hanti mishiin hanti lacageed iyo hanti kasta oo uu dhibaato u geysan karo dabkaas haddaba shirkadda caymisku waxay dib ugu noqonaysaa hadba dhibaatada dabka wixii keenay iyadoo u eegaysa dabkani ma mid wuxuu ahaa kas loo sameeyey ma wuxuu ahaa mid leydh ka kacay iyo hadba wixii sababi kara dabkaas iyadoo ku noqonaysaa kadibna ayaa laga kafaalo gudaya loona magdhawaya si fiican baad noogu sharaxday caymiskii dabku wuxuu yahay bulshaduna inay ka faa'iidaysato ayaan filayaa waxaa jira isaguna caymiska hantida bal isagana bulshada iyo daawadayaashaba u sharax caymiska hantidu waxa weeyaan waxa lagu magdhawayaa lagana daboolayaa dhibaato kasta oo soo waajahda hanti aad leedahay hantidaas waxay doontaa ha noqoto dhibaatada laga daboolayaa haddaba waxay noqon kartaa dhibaato uu xatooyo ay keento dhibaato ay keento dabi dhibaato uu keeno dhisas masiibooyinka dabiiciga iyo dhibaato kasta oo soo waajahda hantidaadaas mar haddaad caymiskii hantida iyo kii dabkaba noo sharaxday waxaa jira caymisyo yaryar bulshadu inta badan ma fahamsana caymisyada yaryar waxa ay yihiin bal markaa maxay yihiin caymisyada yaryar waad mahadsan tahay caymisyada yaryar waxaa hoosgelaya way badan yihiin horta waxaa hoosgelaya lacagtaas oo hadday noqoto mid mishiin ku jirta hadday noqoto mid baanka ku taala ama ku kaydsan meel hadday noqoto lacagta wareegta ay dadku isweydaarsanayaan haddaynu sheegno lacagta isweydaarsanaya maxaa ka mid ah tusaale ahaan lacagteena saada iyo dahabka waa lacagtii wareegaysa haddaba qof waxaa laga
kafaalo gudaya oo loo magdhawaya lagana daboolaya qofka dhibaatooyinka ku iman karaya lacagtaas wareegaysa ay isweydaarsanayaan dadku. sidoo kalena lacagtii bangiga ku kaydsanayd ama meelaha taalay waxa iyadana laga daboolaya loona magdhawaya hadba dhibaatadii ku timaada ama xatooyo ha noqoto ama wax kale ha noqoto. sidoo kalena waxa soo hoosgelaysa lacagtii mishiinada ku kaydsanayd. lacagtii mishiinada ku kaydsan waxa kamid ah tusaale ahaan hadan soo qaadanay ATM-ka waxa ku iman karta ama dab soo waaji kara waa la xadi kara waxyaalahaas ayaa laga daboolaya laguna magdhawaya. ugu dambeyn waxa jira wax la yiraahdo caymiska magdhawda ama dhaawacyada shaqaalaha. Soomaaliland ka shaqeeya wadamo badan oo dunida ka shaqeeya muxuu yahay isagu? caymiska magdhawga shaqaalaha dibta soo waajahda kana soo waajahda hadba deegaanka uu ka shaqeynayo ama meesha uu ka shaqeynayo. waxay horta uu saldhig ku saleysan yahay isagu in dhibaato kasta oo soo waajahda qofkaas laga magdhawayo iyadoo loo eegayo siyaasadda u taala hadba dal. haddaynu soo qaadano siyaasadii markii koobaad ee laga sameeyay dalka Pakistan waxay oran karnaa waxay 1923 waxaana la sharciyeeyay lana dhaqan geliyay agtiga ah ina la magdhawo qofka laga magdhawo dhibaato kasta oo soo waajihi karta oo ku iman karta oo ka soo waajihi karta deegaanka uu ka shaqeynayo. haday noqoto inuu jirkiisa ay soo gaadho dhibaato, haday noqoto waxyaalo kale oo deegaankiisaas kaga imanaya. caymiskii iyo qiimihiisii kala duwanaa iyo kii dhaawacyada shaqaalaha soo gaarayay iyo caymisyada yaryar wixiiba bulshadu u iftiiminay. ugu dambeyn bulshadu waxay ka sugayaan fariintii aad bulshada u direysay ee ku saabsanayd caymiska. horta waxaan markasta baraarujinaynaa oo dhiirigelinaynaa caymisku waxa weeyaan faa'iidooyin fara badan buu leeyahay. markaas waxaan leenahay qadarka ilaahay marka laga imaado wax kasta wuxuu leeyahay qaab loo xaliyo, qaab looga hortago ayuu leeyahay. waatii ahayd ilaahay adigoo tala saaranaya haddana meel baydhsan oo meel wanaagsan ah hadba mar. waxaan ku soo gabagabeynayaa culayska adduunka masiibada caamka cid baa xal keentay adoon rabbi caasin casiisna tala saartay ogowna bal caymis. wad mahadsantii.